بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأحمد بهجت وحرمت حرور ومالين صبتي وسديدي بشر ربيع الأول إلهي خير كذا هاي نصي آمين آمين عشر كان وحان كهالي أخرس كلمة ما أنت ومالنتي لو بقول يستدي تتبعتنات اسكو حكتي أنا رطول الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أخرس كبدن waxaan ka soo hadlay muuqaalkaygii hore ee wiigan horaantiisii iyo wiigii kasii horreeyay waxaan kaga hadlay akhrisku inuu faa'iido leeyahay faa'iidada uu leeyahayna mid keliyaan soo qabsaday faa'iidada akhrisku maskaxda iyo jirka iyo ruuxda uu leeyahay way fara badan tahay laakiin ta keliya aan kusoo qaatay wuxuu kusoo kordhiyo maskaxda bini'aadamka gaar ahaan xoreynta qofka wax akhriya akhriska fiican qof la khiyaameyn kara maaha warka iyo siyaasiyiinta iyo beenaalayaasha iyo suxufiyiinta iyo kuwa suudhka xidha iyo dumarka masaakiinta wax weydiinaya maanta waxaan ka eegaya akhriska badan bugaagta badan qofka waxaan ka hadlayaa akhriya bishii waa imisa waa 3 cisho 3 cisho waa imisa week waa 4 week afartaa week 4 buug ama 7 buug akhriya qofkaas ayaan dabeecadiisa tilmaamaya taan xooga saaraya waa hal mid xusuusta xanuunka loo yaqaano dementia ama xasuus lumista akhriska badan wuu ka hortagaa 80% kuma dhaco ilaahay idinkiisa kuma dhaco dadka akhriya bugaagta dadka social mediaha iyo wararka iyo kubadaawashada iyo tv-ga isticmaala oo dadka badanka qaada xasuus darrada dadka isku buuqan waayo waxay ka sheekeynayaan maanta heblaaya caana iyo hebel baa caana madaxweyne caynka yidhi madaxweyne caynkan yidhi wasiir baa caynka yidhi waxaan shaqadooda ahayn oo aan iyaga dani ugu jirin ay kasii sheekeynayaan marka dadka xanuunka la-aantoo keliya xasuus lumintoo keliya kuma dhaco waxaa ku dhaca xanuunada kale xitaa imaka caanka laakiin akhrisku waxyaalahaasoo dhan buu ka hortaga waayo maskaxdu waxa weeye waa baruur ama xidido cad oo ilaahay isu keenay markastoo aad bug akhrido markastoo akhriskaagu sii bato markastoo maskaxdu sii korado sida muruqa orodka iyo biraqaaqaadka uu muruqa qofka biraha qaadqaada ee orda iyo qofka aan ordin gaari iyo bas iyo fadhiga badan isku mid maaha jirkeedu isku mid maaha shaarka qofka waad garanaysaa maasha allah odanaysa qof quruxda qofka biraha iyo lugeeya iyo orda jirkiisu ka duwan yahay qofka gaariga kaxeeya maskaxdana waa sidoo kale qofku ka akhrisa badan yahay wuu ka maskax fiican yahay waayo maskaxdaada isticmaalaysaa marka akhriska waxaan ka hadlayaa bugaagta halka uu qofku waqti ka gelinayo social mediaha ama telefishinka ama qof kale oo maskiina oo aan waxba ka faa'iideyn hadduu bugaag geliyo hadduu maalintii hal buug akhriyo ama wiigii hal buug akhriyo qof walba karaankiisa laakiin waa kari kartaa dadka qaar baa 3 buug iyo 7 buug akhriya maalintii maxaad u samayn kari weyday aduunba iska horjooga marka akhriska badan maskaxdaada xasuus la-aantoo keliya kama hortago cilmina wuu kugu soo kordhinaya ka fikir bishii waxaad akhriday 4 buug ama 7 buug baad akhriday bishii 3 cisho cilmigaagu maxaad ogaanaysaa wax badan baad ogaanaysaa oo bisha aanad social media iyo telefishinka gelisay marka maxay kuu keenaysaa akhriskaaga markastoo bato markastoo dadka kasii durugto markastoo dadka qodobkayga ku jira waata
fadlan soomaalida igu soo darsataa ajaanib igu soo darsadaa laakiin soomaalida u badan fadlan soomaalida igu soo iminka 200 oo dhowaan tuuray kuwii igu soo darsaday waayo shaashadan waxaan u furay in wax la qabto oo wax la isku dayo qofku wax isku dayo marka imika waqtiga taagto aad ku dhaaqdo buug akhrido ama aad balan qaado ama aad cashar qaado taas weeye taan u sameeyaan shaashadan iyo inaan sayladii noqoto wax ku ganacsado wax ku iibiyo oo saylad buu tahay ciyaar kuma iman meesha marka dadka iska kay daawada ee waan ka tuura waqtiga qaata waqtigana way iga lumisa fadlan imika laba qof maanta ka tuuraya kale fadlan ha igu soo darsanina haddii aanad waxba qabsanayn haddii daawasho un kaa gaadho kuwa caanka kuwa u tag way badan yihiin kuwa u tag halkan aniga waxay wax qabsi inaan wax kusoo kordhiyo dadka inaan ka badalo qofkii muuqaalkayga daawada inay noloshiisa sii wanaagsanaato qof kasta muuqaalkayga daawada noloshiisa fiicnaato laakiin uma baahni qof aniga wax iska daawado oo halka ka dhaqaaqo uma baahni waana naqaanaa waan ka tuurayaa ha igu soo darsan imakaba fadlan taas weeye casharka aan maanta u jeedaa waa taas akhriska dadka igu jira akhriska bilaaba haddaa bilaabin weydaan dee adiga iyo aniga wax inaga dhexeeyaa ma jirto akhriskiina waa inuu bato oo aad tiraahdo ay isku faantaan oo aad ku tartantaan tartanka waxaa jira mid caafimaad ah waxa wanaagsan waa lagu tartamaa diinteenu way inoo gashiisa ilaahay ina baray wax wanaagsan waa lagu faanaa hebel baa waxaa qabsaday anna waa inaan kasii badiyo isagana qofkana waad sii dhiirigelinaysa adigana waad dhiirigelinaysa laakiin muuqaal baa daawan salkii ka tegaysa imika muuqaalka markaad dhegaysato halka ka dhaqaaq buug akhri cashar qaado quraanka tasfiirka ka baro wadaadada fiican wadaadada ku celceliyuuna ka baran wadaadada fiican ka baro masaajidkaaga waxaad ku tiraahdaa haddii aad cashar noo soo jeedin weydaan dee lacagta maxaan idinku siinaa anigu masaajidka ii dhow soomaalida waxaan ku iri dee maxaa lacag idinku siiyaa af soomaali ba carruurtii waxa uma dhigtaan be af soomaali uma dhigtaan dumarkii iyo raggii guurka ma bartaan furitaankii baa batay ma dhibaatada waxay ka dhacayso isuma keentaan marka ma lacag uma idinka geysiya aad xukunka jeceshiin ma jirtaan ku iri ma idin siinayo marka waa inaad la xisaabtanto waayo waxa ina waalay waxa weeye dad meel fadhiyo oo magac doonaya waxqabad kale lama doonayo marka haddii aanad waxba akhriyahayn shaashadan kuuma qalanto iskaga bax meelaha heesaha iska gal meelaha dadka caankaa gal dadka suurka xidha orada u tag dadka dumarka ragga dabayaca orada dumarka u tag oo waxaad tirahdaa waa caana oo waa ku kaa